وادرتو مدحوينه كحيجينكي ayaa intuu tago deegaankiisii soo ururinaya reerkiisii isagoo hantidii iyo lacagtii iyo baabuurkii qaranka haddaan ciise musan haddaan reer hebel haddaan cidaan nahay udub baan nahay haddaan cidaan ma nahin waxa noqotay caaliga dhaqan bay noqotay marka taas matiri baalku taa laakiin odan baa iga daa taa halka Soomaaliga odan maayeen macna ka jeedo waxa weeye haddii lagu doorto ayaan weydiiyay mas'uuliyiintan golaha wasiirada ee markaas aad magacaabi doontid ma waxaad ku soo magacaabi doontaa habeeleedkan imika iyo weligeedba lagu soo magacaabi jiray soo waxdaysa fikrad ka duwan oo aan taasi ahayn aan ku horeeyo madaxweyne daah horta mid kastoo magacaabo waa loo abtirin doonaa waayo dhaqan bay laga tahay nin aan abtirsiin laga reebay horta ma jiro hadaa systemka wax ka bedelayo iyo haddaan ku daayaba horta waa loo abtirin doonaa laakiin waxa laga yaabaa second termkayga inaan waxyaaba cusub iyo talooyin cusub aan soo kordhiyo igama maqno oo aan u xulo aan is ilaahdo dadka ugu wanaagsan ee wax gudbin kara ha loo xulo laakiin mid uun baan kuu sheegay dadkeenu inayna abtirsiin ka daynin markaan magacaabo nin kastaba loo odhanayo waayo identity-ga keliya lahayn baa in abtirsiin lagu sheego oo qofka markastaba adigu ku soo xushay shakhsiyadiisa haddana kulleyba magacaasi waa magac inala socdo mid la reebayo maahin waa reebel waa laga dhigi laakiin waa laga yaabaa inaan waxyaabo badan oo talooyin badan oo waqtiguna aan wax badan ku bartay muddaan soo joogay maanta waqtigu wax badan buu baray waayo aragnimo badan oo ragga badani aynan hayn baan maanta hayaa inaan talooyin badan oo habkan ay wax u socdaan aan ka bedelan inaan soo kordhiyana waan rajaynaya hadduu ilaahay igu guuleeyo doorasho horta markaan habeelaad ka hadlayno waxaan u baahnaa inaynu macelno beelaha waxaanu jeednay beelo waxay yihiin beelaha waxaad abuuraysaa waa wax qaranku leeyahay weeye waxaad doonaysa inaad wax u qabato waa qaranka waxaad u doonaysa inaad wax u qabato waa ummadda waxaad doonaysa inaad wax u qabato waa dalka ummadda qayb waliba meel bay ka timid dalka bari bay ka timid galbeed bay ka timid dhex bay ka timid degaan bay ka timid degaamada haddii magac qabiil aad ku sheegaysa haddaad magac degaan ku sheegayso waqti qabiil baa wax ku qaybisay markaad qabiil wax kuma qaybinay degaan baa wax ku qaybisay مثلا markaa qoladaas eragaabay degtaa qoladaasi boormay degtaa qoladaasi waxay degtaa seelac bay degtaa qoladaasi salaxlay bay degtaa qoladaas ma gobollo iyo degaan ahaan baan wax ku qaybisay mise qabiil baan wax ku qaybisay qofkii doonaya inuu magacu yeelana qofna wuxuu yahay qabiil baa wax lagu qaybshay qofna wuxuu yahay qabiil wax kuma qaybine degaan baa wax ku qaybshay degaankuna xaq buu leeyahay oo innaga dhismihii mujtamaceen u samaysnaa ayaa degaan ku samaysan degaankii qabiilkii baa isgalay marka waxba yeynaan bees sheegin af qabiil cid afka ku dhufan mayso cid aan ka hadlaynin ma jirto maalin walba noo yimaadaan kama qarsoona habeen walba tvgaad ka daawataa ama xisbiga kulmiha kusoo beereen ama xisbiga urub ha ku beereen ama cood ha ku beereen waa caaday noqotay dhaqan batay annagoo reer hebela waad aragtoo madaxweyne ku-xigeenkii ayaa intuu tago deegaankiisii soo ururinaya reerkiisii isagoo hantidii iyo lacagtii iyo baabuurkii qaranka haddaan ciise musan haddaan reer hebel haddaan cidaan nahay udub baan nahay haddaan cidaan ma nahin waxa noqotay caaliga dhaqan bay noqotay marka taas matiri baalku taa laakiin odan baa iga daa taa halka Soomaaliga odan maayeen macna ka jeedo waxa weeye tanaan islaana kala saara wax tatawurka mujtamaca لحظة السياسة وحي لا تشان قاطع اسمها مجتمع لا تشان قاطع كما بحثنا كفتو ويجي كسعطا يجي كتمد يجي حقبانسا فركا أما مقع قبيل كشيء أما مقع قبيل إنا كشيء بتشعلي لكن واحد تعالى كشيء مقع دقان ماذا وانو تحقل لنا وانو كحساب طبعنا وانو قيميننا فاليو اللي هم بانو دقان والبصيرنا هذا فريد كان قاعد يكتب لابو وحبنا كتجينا أنا قبيلادهم كتجينا إن شاء الله تعالى قاس عنص قاتك يسح الله عنينا ونكتينا واحد دوين اللي أبي يسكرون قاتك ويكند كلا عنا
ma joojinayo adaan ku tusiya inaan iska joojiso iska yaraysid oo si habsami ah aad u cuntay oo qofka oo tilmaaya khasaarisa u sheegay waxaan doonaa inaan geyn hore geyn daba shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo si aan qofku shaqada u helin waxaan doonaa qofka qaadka cuna aan cunayna ka hor qorno shaqada ka qaadka cuna oo dhiiri gelino qofka caafimaadka qaba ee doonaa marka aanu qabiil ku sameyn mayno aqoon ku sameyn hadii laba walaalo helo oo isku aqoon ah oo labada cabinet geliyaan waan sameynaa 5 hablood baan cabinet gelin hadii la yiraahdo subhanahu wa ta'ala 5 baa ay qontaysaa